marka waxaan rabnaa insha Allah hadii la yiraahdo qaybtii inaan practicalki aan dhex galno cutubkaan waxa loo yaqaanaa ama qaybta loo yaqaanaa hands on practice inaan isu diyaarino inaan practice sameeyno hadii la yiraahdo waxyaabo badan baan arkaynaa hadii la yiraahdo waxa inoogu horeeya shaqada ugu horeysa oo laga doonayo wax weeye inaan soo degsano ama la soo degsano packet tracer okay packet tracer ka inaanu la soo degno marka packet tracer ka hadda mid casri ah la soo degaa ki hore lama isticmaalo kan casriga ah hadda la isticmaalo way adkeed oo wali la soo dego siska lacag bay ahayd ama qofkii iska diiwaan galiya academy-gooda leedahay siskadu ina ka waraysaa marka academy-gooda qofkii iska diiwaan galiya baa heli jiray waxaas oo kala laakiin hadda waa la furay marka shaqada aynu arkayno waxa weeye inaanu la soo degno inaanu ka shaqeyno inaan hawsha galno marka xabad baynu u istaagaynaa hadii la yiraahdo okay si marka packet tracer ka aw la soo degtid marka saan hore idin kugu tilmaamay awal in qofku asoo gurigiisa joogo engineer noqdo oo network barto waa adkay waayo waxa laga rabay qalab $100,000 ciyaalka taajiriinta ya odayaasha taajiriinta ciyaalkooda baa network baran kari waayo macnaheedu wax la baran kartid ma $20,000 ba laga rabaa qalabkiisa aad practice karaysid waxaana waa dareemi doontaan marka network baranayno marba wax loo banaanaya 10 switch in la isku xiro fahmi kartaan 10 switch iyo 10 router qofka inuu practice kaliya ku sameeyo oo soo gadi kara waa qof macnii lacag badan haysta Soomaa oo ku adagtay qofka caadiga ah inuu average ka sameeyo marka hadda opportunity weyn haysanaa aanu ka shaqeysano oo aan isticmaalno alright marka siska packet tracer ku oo shaygan insha Allah baranayno hadii la yiraahdo waa simulator marka simulator ku waxa weeye wuxuu iska dhigayaa routerki ama switch iska dhigaya waa la soo fududeeyay oo ma cusla oo macnaheedu shada markii switchka la daaro waxa laga yaabaa muddo badan inay sugtid intuu daarmayo in fact wax badan buu qaataa maybe 5 daqiiqo ama 3 daqiiqo 4 daqiiqo inta soo kacay marka waxa shaqada 4 daqiiqo ka qaadan waxa waa ku dheeraan lahayd waqtiga practice badan sameeyay ilaa waxba qarbaysaa marka laakiin hadda kan waa fudayd oo daaraysa uu daarmaya shaqada qabsanaysa koorarkaada natiijadii wax walba arkaysa waxba kama duwana siiska waxa ku shaqaysaa CLI ama command line interface marka shaqadeena waxay u banaan doontaa shaashad madow aan ku shaqeynayno CLI ya waayahay meel walba joogto ku soo practice gareyn kartaa guriga ku soo practice gareyn kartaa waxaad u baahan tahay kaliya inaad tagtid Cisco Network Academy-ga kadibna aad la soo degtid inaan iska diiwaan gelisid baad u baahan tahay Google ka tagaysaa netcard baa ku qoraysaa waxa laga yaabaa inay bedbedelaan IP-gooda ama qaabka loo tagi karo ama ay sheeg domain name-kooda ay bedelaan domain name-ku waa magaca cbc.com aljazeera.com skype.com salverse.net macni saasoo kale domainadaas ayaa marka domain-kooda inay bedelaan baa laga yaabaa marka website-ku waa kan shaqada dhan waa fududeey kartaa saanaad u qori kartaa oo tagi kartaa ama Google ka saan ku qori karaysaa marka netcard.com netcard.com macnaheedu network academy waxa soo laga soo gaashaanay okay networkacademy.com okay marka shaqadeenu qabanayna hadii la yiraahdo step by step ana ka shaqeynayna insha Allah hadii la yiraahdo